Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Daawadayaal kusoo dhawaada janaalka Barca 252. Barcelona ayaa gaartay guul muhiim ah kulankii ee garoonka Camp Nou ee kusoo dhaweysay xalay kooxda Sevilla, balse dhibaato horleh ayaa soo diristay maadaama laba casaan laga siiyay laba xidigaheeda. Blaugrana ayaa bilowga fasal ciyaareedka dhibaatooyin natiijo xumo ah la soo diristay, balse tan iyo imaatinka Leo Messi waxaad moodaa inay kacsan yihiin halkii ay joogeen. 4 gool ay kala dhaliyeen Dembele, Suarez, Vidal iyo Leo Messi ayaa xasuuq u noqotay Sevilla, waxayna natiijadaas keentay in Barcelona ay 2 dhibcood u jirsato hoggaanka horyaalka ee ku fadhiso Real Madrid oo guul ka heshay kulankii Sabtida. Blaugrana waxay shaqeysatay 16 dhibcood kaliya 8 ciyaarood oo ay dheeleen kulamada La Liga. Bandhigoodii qaybtii hore ee kulankii xalay muujinaya inay la soo baxeen awood dheeri ah. Nacer Valverde ayaa isbedel weyn ku sameeyay kooxdiisa kaadka soo dhigay Griezmann, Jordi Alba iyo Sergio Busquets, kuwaas oo ah xidigaha joogtada ah kooxda tan iyo bilowgii fasal ciyaareedkan. Leo Messi wuxuu dhaliyay laadkiisii xorta ahaa ee 43aad, sidoo kale wuxuu dhaliyay goolkiisii 100aad oo kasoo toogto meel ka baxsan xerada ganaaxa dhammaan tartamada oo dhan. Luis Suarez ayaa dhaleeceyn badan kadib muujinaya inuu ku soo laabtay qaab ciyaareedkiisii wacnaa ee shabaqa ayuu gaaray, isagoo dhaliyay goolkiisii 3aad ee 2 kulan gudahood. Si qurux badan ayuu u taabtay shabaqa Sevilla. Daqiiqadihii u dambeeyay ciyaarta waxaa Barcelona laga saaray Ronaldo Araujo oo casaan toos ah qaatay, iyo sidoo kale Ousmane Dembele oo gudoomay jaalihiisii 2aad kadib roose la siiyay. Ugu dambeyntii ciyaartii xalay kooxaha Barcelona iyo Sevilla waxay ku soo dhamaatay 4 gool iyo eber ee ku badisay kooxda kubadda cagta Barcelona. Fadlan janaalka Barca 252 haddaa ku cusub tahay rukumo ama subscribe saaro. Intaan muuqaalka xiga isku arki doono, sidaas iyo nabadgelyo.